ciidamada booliska gobolka Togdheer gaar ahaan saldhigga Faarax Omar ee magaalada Burco ayaa habeennimadii xalayta ku guuleystay inay soo qabtaan 2 gaari iyo 3 eedeysane oo ay sheegeen inay magaalada soo galinayeen 418 dhalo oo khamri ah waxaana ka warbixiyay hawlgalkaas ay ciidamadu ku soo qabteen khamrigaas tirada badan iyo eedeysanayaashaas taliyaha hawlgelinta gobolka Togdheer Maxamuud Maxamed Warsame iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Ali Maxamed Faarax waxa aanu markasta ku hawlanahay sidii aanu ula dagaalami lahayn muqaadaraadka hadday maalin tahay iyo hadday habeen tahayba waxaanu ku soo guulaysan hawlgalkii aanu bilownay xalay 10kii habeen gaari khamriya oo Leyla Calaawiya oo gaarigaas soo taagana nambarkiisuna yahay L720 gaarigaas wuxuu sidaa tiro dhan khamri dhan 418 litir waa tirada guud ee khamriga gaariga ayaa gaari kale oo daba soconay ilaa iyo xalay hawlgaladayda ka mid ahayd taliyaha iyagu nagu amray jananka iyagu nagu amray hawlgalkaas uu noo fulay alxamdulillaah rabbil caalamiin eedeysanayaashii way naga baxsadeen dib baanu ka helay waanu haynaa 3 eedeysane oo gaariga khamriga ku sitay iyagina waanu helay dib baanu ka helay alxamdulillaah kiiskaasi way soo kaayay waxa hawlgalka waajibaadkiisa waliba sii fuliyay taliyihii heeganka ku jiray Xidigle Axmed Baashe oo ah taliye ku xigeenka saldhigga Faarax Omar waan ugu mahadnaqayaa sida xilkaasnimada ah ee hawsha anagoo ku wara jirna haddana isagoo isaga sii xil saaray waxaanu leenahay dadka muqaadaraadka sida ugu daba jooga ama ka ganacsanayo ayo min al ayam waanu ku helaynaa haddaad mar iyo 2 iyo 3 naga baxsato marafraadka waanu ku helaynaa dadka iyo cuqubadooda iyo dhalinyarada waxa aad shaqada uga dhigaysaan way ku soo qabanayaan waxaanu leenahay iskaga baxa waxay ka mid tahay la dagaalanka dawargoynta muqaadaraadka iyo maandooriyaha oo hore u sheegnay waana la dagaalami doonaa inta ay naftu nagu jirto ama aanu qarankan iyo ummadan mas'uuliyadeedii aanu qaadnay fulinayno waa la dagaalamayna muqaadaraadka iyo maandooriyaha dhibaatada ku haya da'yarta ama la dagaalamaya diinta islaamka ee suuban iyo dhaqankeena wanaagsan waa la dagaalamayna waanu wadaynaa hadii alla yiraahdo waxaan mahad u jeedinayaa taliyaha hawlgelinta Maxamuud Warsame iyo taliye xigeenka saldhigga Faarax Omar Xidigle Axmed Baashe oo xalay bilaabay 10kii habeenimo 420 ku guuleystay aad baan ugu mahad celinayaa iyo kuwii hore ee ciidanka ka tirsanaa iyo saraakiishii hore ka hawlgalay khamrigan kii la midka ahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinay gaariga lambarkiisu yahay V0551 oo gacan siinayay oo nooha ah khamrigan gacan siinayay gacan buu siinayay oo la shaqeynayay siinayay si booliisku u sheegeen isagana gacantaanu ku hayna waxaanu ku daba jirnaa waxa laala wixii kale ee ku tacaqula amba waxaan watay wixii aanu gacanta ku haynana waa qabanay booliisku way qabteen wixii fakadayna waa raadinayna waa qabanayna insha Allah bidimlaahi kariim Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida